soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janalka dabagalka wararka waa 8 bisha 10aad sanadka 2023 qodobada ugu waaweyn wararkan idin haynana waxa kamid ah xogo kala duwan oo ka soo baxaya kulan xasaasi ah oo dhaxmaray ra'iisul wasaare Xamza iyo hogaamiyaha SAC Qaatumo iyadoo ra'iisul wasaaruhu uu hogaamiyaha SAC u cadeeyay mowqifka dawladda Soomaaliya Faisal Ali Waraabe oo ku hanjabay in ay laascaanood dib ula wareegayaan faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya shir uu gudoomiyay Laftagreen warar cusub oo laga helayo dagaal beeleed ka qarxay hawdka degmada Buuhoodle gudoomiye Shuute oo hal arrin kaga digay ciidamada qaranka iyo qaybta dambe ee warkeena on ku eegi doono warbixin ku saabsan maxay tahay guul darrada sirdoon ee horseeday dagaalka yaabka leh ee ka dhacay Israa'iil intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka dabagalka wararka haatanna waxaan idinku wareejinayaa waryaheena oo inoo soo gudbinayo wararkaasi oo faahfaahsan aad baad u mahadsantahay halkan waa janalka dabagalka wararka daawadayaal haatanna kusoo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre ayaa kulan gaar ah la yeeshay hogaamiyaha ku-meel gaarka maamulka SAC Qaatumo Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye oo soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulankan oo ah mid xasaasi ah ayaa ka dhacay xarunta Villa Soomaaliya gaar ahaan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyadoo looga hadlay arrimo dhowr ah ugu horeyn Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka dhageystay hogaamiyaha SAC warbixin ku saabsan xaaladda bulshada iyo nololeed ee ka jirta magaalada Laascaanood oo ah xarunta gobolka Sool sidoo kale Cabdiqaadir ayaa dowladda federaalka uga mahadceliyay casuumaad ay u fidisay iyo sida weyn ee loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaare Xamza ayaana dhankiisa madasha ka hadlay waxaana shaaca ka qaaday in xukuumadda federaalka Soomaaliya u taagan tahay ilaalinta midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo in wixii khilaaf ah ee jira lagu xaliyo miiska wadahadalka shirarka ayaa sii socon doona waxaana ujeedada kulankaas uu ahaa isxog wareysi iyo soo dhaweyn maadaama markii ugu horeysay ay tahay in hogaamiyaha SAC Qaatumo uu soo gaaro caasimadda dalka tani markii lagu doortay gudaha magaalada Laascaanood Firdhiye ayaa hore ula kulmay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka wasiiro kale iyo xildhibaano taliyaha ciidanka booliska iyo mas'uuliyiin kale sidoo kale isla saacado kadib Firdhiye iyo qaar kamid ah xubnihiisa fulinta ee la socday ayaa waxay soo fadhiisteen xukuumadda federaalka Soomaaliya golooda wasiirada waxaana kulankaas qayb ka ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Xamza Cabdi Barre labada dhinac ayaan isdhaafsadeen xogo kala duwan waxaana lagu ballamay in si dhow ay u wada shaqeeyaan maadaama xubnaha fulinta SAC Qaatumo ee wasiir ahaan amal matala lagula ballamay in si dhow ay ula shaqeeyaan wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo dhanka xukuumadda federaalka laga codsaday in ay fududeyso wax ka qabashada baahiyaha ka jira deegaanada SAC Qaatumo hogaamiyaha SAC iyo xubnaha la socda ayaa Muqdisho u yimaadeen sidii ay ula kulmi lahaayeen madaxda sare dalka iyo qaar kamid ah wakiilada beesha caalamka ee fadhigooda yahay caasimadda si ay uga hadlaan xaaladda magaalada Laascaanood oo ay hore uga dhaceen dagaal culus wararka ayaa intaasi ku sii daray in Firdhiye uu dowladda dhexe kala xaajoon doono mustaqbalka SAC Qaatumo oo ku dhawaaqday inay tahay maamul madax bannaan dowladda federaalka ayaana muhiimad siinaysa shacabka SAC oo awood iskaga saareen ciidankii Somaliland sidoo kalena dhowaan sameysteen maamul ay ku mideysan yihiin dhinaca kalena Faisal Ali Waraabe ayaa ku hanjabay in Laascaanood ay dib ula wareegayaan Faisal Ali Waraabe oo ugu horeyn ka hadlayay aragtidiisa maamulka cusub ee SAC ayaa yiri horto anagu ma aaminsanin wax la yiraahdo SAC reer Laascaanood waa beel kamid ah beelaha dega Somaliland marka ay noqoto safarka ninka la sheegay inuu yahay hogaamiyaha waa nin Soomaaliyeed oo tagay dhul Soomaaliyeed in Laascaanood la yiraahdo waxa lagu darayaa dal kale waxba kama jiraan ayuu yiri gudoomiyaha wuxuu hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay qorshaha Somaliland uga aadan Laascaanood isagoo yiri Laascaanood sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa loogu soo celinayaa gacanta Somaliland waxa la soo celinayaa kala dambeyntii iyo sidii waxa lagu soo celinayaa xoog iyo dagaal ama wada hadal hadba kiino suuragal ayaa lagu soo celinayaa haddii ay ka bixi waayaan dadka shisheeyaha ah ee ku soo duulay mana ogolaan doono in deegaan Somaliland ee leedahay lagu daro dal kale ayuu yiri gudoomiyaha xisbiga Faisal Ali Waraabe oo tusaale u soo qaatay nidaamkii dowladda Maxamed Siyaad Barre ayaa yiri Somaliland oo ay iska saartay oo diiday nidaamkii Maxamed Siyaad Barre maantana waa sidii oo kale magaalo Somaliland kamida cid aanan u ogoleen kuma jireyso waxaan arkaynaa dad ku dabaaldegaya oo ku sugan Laascaanood oo uu kamid yahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland xaqiiqdu waxay tahay haddii ay sheekadu qabiil isku bedesho iyagoo ma joogi doonaan Muqdisho ayuu yiri
dhanka kale xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kuna matala gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa qoraal uu ku daawacay bartiisa Facebook oo kaga hadlay soo dhaweynta hogaamiyaha SSC Muqdisho. xildhibaan maareeye ayaa yiri waxaan fiirsaday soo dhaweyn xamar loogu sameeyay gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka u doorteen gudoomiyaha degmada Laascaanood gudoomiye Fardhiye waligee ma arkin gudoomiye degme oo ka taageerayaal badan talo maxaa jira oo maxay tahay waxaan iyo xamaasad ah. maareeye oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yiri waxaan isweydiiyay talo waxaa isbedelay siyaasadii dowladda federaalka ee in arinta Somaliland oo isku dhan lagu dhameeyo wada hadal nabadeed oo waxa laga dhigay in Somaliland degmo loo soo furfuro oo dowladda federaalkuna degmo kasta u aqoonsato maamul ka tirsan federaalka. xildhibaan maareeye oo sidoo kale si dadban uga hadlayay nidaamka loo maray soo dhaweynta hogaamiye Fardhiye ayaa hadalkiisa sii raaciyay. sayidkii wuxuu yiri Aamir waa saleele ana haatan caymadii war haday sidaasi tahay oo haddaan degmo Somaliland ka soo goosto sidaan soo dhaweynayo oo boqol baabuur oo proof ah iyo guri 100 askari waardiyeynayso madaxtooyada la iga siinayo aniga la fahanteedu madaxda dowladdu waxa ay fahansiiyeen waan ka tagayaa xildhibaanka waxaan Somaliland ka xoreynayaa degmada Aynabo oo isla gobolka Soola oo deegaan ahaan ka weyn degmada Laascaanood kana kheyraad badan kadibna xamar baan ka soo degayaa ee halay aqoonsado oo borotokoolkan oo kale haligu soo dhaweeyay ayuu yiri maareeye. si kastaba hadaladan ka soo yeeray maareeye iyo sidoo kale Faysal Cali Waraabe ayaa imaanaya xilli shacabka reer SSC uu dagaal adag dhexmaray ciidanka Somaliland taa oo ugu dambeyn ay ku guuleysteen inay ka saaraan deegaanadii ay kaga sugneed Somaliland qayb ka mid ah gobolka Sool. shacabka SSC ayaana waxa ay ka dhawaajiyeen inaysan dooneynin kasii mid ahaanshiyaha Somaliland waxayna dalbadeen oo ay ka dhawaajiyeen inay u taagan yihiin midnimada Soomaaliya iyagoona tilmaamay inaysan dooneynin inay ka tagaan midnimada ummadda Soomaaliyeed balse Somaliland ayaa weli doonaysa inay si xooga ku maamusho shacab iyo deegaankooda xilli iyada la fahanteeda gool isku taagan ee haatan ku dhawaaqday ay ku timid markii uu dul qaadan weysay dhibaatooyinkii ay kala kulmaysay dowladii dhexe ee dalka oo hogaaminaya Maxamed Siyaad Bare balse waxaa la isweydiinayaa sababta haatan keenaysa in Somaliland ay iyadu ku qasabto waxa ay shalay ka hordeysay shacabka ku nool deegaanada SSC. geesta kalena faahfaahin dheeraad ah waxaa laga helayaa shir uu gudoomiye madaxweyne Laftagareen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo dhawaan ku laabtay Beedhabo kadib safarkiisii magaalada Nairobi ayaa haatan bilaabay dhaqdhaqaaqyo culus. madaxweynaha ayaa gudoomiyay shir ballaaran oo la yeeshay saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed iyo waliba ciidamada ADMIS kaas oo looga hadlay ammaanka deegaanada maamulkaas. shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay taliyaha ciidanka asluubta taliyaha ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo haatan ku sugan caasimadda ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed. ujeedada shirkan ayaa ah mid looga arinsanay oo diyaar garowga wajiga labaad ee dagaalka shabaab looga xoreynayo dalka gaar ahaan gobolada maamulkaas. Laftagareen oo madashaas ka hadlay ayaa faray saraakiisha ciidanka ee kulanka ka qayb galay in wixii xilligaas ka bilowdo uu bilaabanayo dagaalka deegaanada Koonfur Galbeed looga saarayo shabaab la aaminsan yahay inay ku xoog gobolada maamulkaas. sidoo kale madaxweynaha ayaa ciidamo cusub tababar ugu soo xiray magaalada Beedhabo kuwaas oo iyaguna loo diyaarinayo amniga iyo la dagaalanka kooxda khawaarijta. dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi isla markaasna Koonfur Galbeed wajahayso xiisad ka dhalatay doorashada ku soo foodle. waranka doorashada ayaa haatan sii xoogaystay kadib markii iyaguna dhaqdhaqaaqyo bilaabeen xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen. halkaad weli daawadayaan lagala socotaan waa janalka dabagalka wararka. warar dheeraadna waxaa laga helayaa dagaal beeleed ka qarxay hoodka degmada Buuhoodle ilaa 10 ruux ayaa ku geeriyootay dagaal ka dhacay deegaanka Maskax Buuqle ee gobolka Togdheer kaas oo u dhaxeeya maleeshiya beeleed ka soo kala jeeda magaalooyinka Burco iyo Buuhoodle. dagaalkan ayaa salka ku haya isheesi dhul oo u dhaxeeya labada dhinac sidoo kalena dhaawac fara badan ayaa ka dhashay dagaalkan oo socday saacado badan. wali xiisada dagaal ayaa ka tagan goobihii lagu dagaalamay mana jiraan dadaalo lagu joojinayo colaadda iyadoo dhinacyaduna ay kala gaareen gurmadyo. dagaal beeleedka ka bilowda Togdheer ayaa ku soo aaday xilli 25 Agoosto looga adkaaday Somaliland duulaan muddo 8 bilood uu ku ahaa magaalada Laascaanood. horey dhaqanka SSC ayaa uga digay horinta colaad beeleedyo dhexmara beelaha Somaliland iyo Khaatuma balse
xiisadahani cusub ee beelaha Somaliland ka dhex alowsan ayaa saameyn xoogan ku yeelanaya abaabulka dagaal oo ay Somaliland doonayso inay dib ugu qabsato laascaanood waxaana la tilmaamayaa in ciidamo badan oo ay soo aruurisay Somaliland haatan faarujiyeen xirooyinkii lagu waayay kuwaas oo u kala gurmaday beelaha ay ka soo kala jeedaan geesta kalena Shuute hal arin ayuu uga digay ciidanka qaranka gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan sare Xasan Cali Nuur Shuute oo beedhabo uga qayb galay xaflad tababar loogu soo xiray askar cusub ayaa hal arin uga digay ciidamada Shuute ayaa ciidanka uga digay inay iibsadaan ama lumiyaan qoriga ay siiso dawladdu isagoo uu cadeeyay in halka qori ee dawladdu siiso hadii uu gacantiisa ka baxo uusan ku magi karin 100 qori oo kale gudoomiyaha Shuute ayaa arinkan ku macneeyay inay ka mid tahay dhaqanka ciidamada dawladda si adag ayuuna ugu dardaarmay ilaalinta anshaxa iyo qaadashada amarka saraakiisha wuxuu sheegay in qori kasta uu dawladda uu leeyahay lambar ay ku aqoonsato sidaas daraadeed halkii qori oo dawladda u diiwaan gashan wuxuu sheegay inuu ka qaalisan yahay 10 qori oo cusub tababarkii waa idin dhamaaday waxa la idin siinayaa hub ilaaliyo hubka oo xafida hadayacina hana lunsan hubka dawladda dayactiro iskuna ilaali ku difaac dalka diinta iyo dadka ayuu yiri gudoomiyaha Shuute sidoo kale gudoomiyaha ayaa ciidanka ku argeliyay inuu bilowday dagaal kama dambaysa oo lagu ciribtirayo qawaarish isagoo ku amaanay go'aanka ay ku qorteen ciidamada qaranka dhanka kale markii ciidankaas tababarka loo soo xiray kadib madaxweynaha dowladda goboleedka Koonfur Galbeed ayaa shir gudoomiye kulan looga hadlayay u diyaar garowga wajiga labaad ee dagaalka qawaarish looga xoreynayo dalka waxaana la filayaa dhawaan deegaanada maamulkaas inuu ka bilowdo dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dagaalka ku aadan iyadoona wajiga koowaad ee dagaalka la filayo in maalmo gudihiisa lagu soo afjaro maadaama uu haatan heer gabagaba ku dhow yahay kana socdo deegaanada maamulada Hirshabelle iyo Galmudug wajiga labaad ee dagaalka ayaa loo qorsheeyay inuu ka bilowdo deegaanada maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland waxaana ka qayb gali doona ciidamada ka socda wadamada dariska sida Kenya, Djibouti iyo Ethiopia waagaagi daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa maxay tahay guuldarada sirdoon ee horseeda dagaalka yaabka leh ee ka dhacay Israel weerarada ay qaadeen kooxda Xamaas oo u muuqday kuwa qorsheysan ayaa waxa uu lahaa laba waji 12 nin oo hubeysan oo ka tirsan kooxda Islaamiga ee Xamaas ayaa u muuqdeen inay gudaha u galeen Israel raggan hubeysan ayaa waxay warar ku sheegayaan in Israel ka galeen dhanka koonfureed isla markaasna ay weerar ku qaadeen ciidamada Israa'iiliyiin oo halkaas joogay weerarkan oo ahaa mid la yaab leh ayaa waxa uu kadis ku noqday Israel waxa hal mar wada dhawaaqay qalab ka bixiya digniinaha maleeshiyaadka ayaa ku galay Israel mootooyin waxaana jira warar sheegaya in rabshado ay ka dhaceen in ka badan 20 goobood raadiyaha Israel ayaa sheegay in 35 askari oo Israa'iiliyiin ah la afduubay balse Israel waxay ka gaabsatay arinta afduubka la sheegay in Xamaas ay geysatay laakiin xogaha ay soo baxay ayaa tilmaamaya in afduubku uu haatan marayo boqolaal Israa'iiliyiin ah wajiga labaad ee weerarka Xamaas ayaa ah mid dhanka gantaala oo Israel ku garaaceen taliyasar oo ka tirsan Xamaas ayaa ku andacooday in kumanaan gantaala ay ku garaaceen gudaha Israel howlgalkan ayay kooxda Xamaas ugu magac dareen howlgalka duufaanta al-Aqsa muuqaal aan wali si madax banaan loo xaqiijin ayaa muujinaya tiro askar Israa'iiliyiin oo dhimatay gawaari ay leeyihiin ciidamada Israel ayaana sidoo kale la weeraray iyadoo qaarkood la qabsaday isla markaasna ay dagaalyahanada Xamaas ku qaadeen Gaza dhimashada Israel ka soo gaaray weerarkaas ayaana sii kordhaya shacabka ayaa la tilmaamayaa in ka badan 100 ay ku dhinteen gantaaladii lagu garaacay goobo kamid ah magaalooyinka Israel halka ku dhawaad 400 ay dhaawacmeen sidoo kale ciidamada Israel looga dilay dagaal toos ah iyo weerarada kale ee gaadmada ah ayaa la tilmaamayaa in iyaguna ay gaarayaan ku dhawaad 200 haddaba guuldarada sirdoon markaanu eegno Israel arinkan ku aadan Israel ayaa leh mid kamid ah shabakadaha sirdoon ee ugu ballaaran uguna casrisan bariga dhexe gudaha iyo dibadaba waxay leedahay shakhsiyaad sirdoon oo wararka u soo gudbiya isla markaasna ku dhex jira kooxaha xagjirka ma ahan dhulka Falastiiniyiinta oo kaliya laakiin Lubnaan, Syria iyo meelo kaleba way ka howlgalaan waxay hore sirdoonkoodu suura gashay inay dilaan hogaamiyaha xagjirka iyagoo oo la adeegsanayo duqeymo diyaaradeed aan duuliyaha lahayn ama xitaa taleefanada gacanta haddana dhamaadka fasaxa Yuhuudu waxay u muuqataa in lagu qabtay hurdadii oo la gaaday Xamaas waxa ay awooday inay qorsheyso oo ay fuliso weerarkan sida taxadarka loo agaasimay ee u muuqda
in Israel ay ka warheli weysay way iska caddaa in Israel ay qaadi doonto weerar culus oo argoosi ah inkastoo durbadiiba ay bilowday duqeymo balse waxaa taala su'aasha ah sababta sirdoonku ugu guuldareysteen inay ogaadaan weerarkan isla markaasna aysan dignin u bixin ciidamada Israel ayaa sheegeen in tobaneeyo diyaaradooda dagaalka ay duqeymo ka wadaan bartilmaameedyada Hamas ee marinka Gaza wasaaradda gaashaandhigga Israel ayaa sheegay in heegan sare la geliyay militariga iyagoo ka jawaabaya weerarkan lama filaanka ee Gaza Israel ayaa sidoo kale sheegtay inay wali wado qiimeynta weerarkani lama filaanka ah ee lagu soo qaaday ciidamada Israel ayaa ku dhawaaqay sidoo kale inay bilaabayaan howlgalkan ay ugu magac dareen seefta birta kaas oo ka dhana kooxda Hamas ee marinka Gaza wasiirka difaaca Israel ayaa xusay in Hamas ay bilaabeen dagaalka dhana Israel wuxuu ku tilmaamay bayaan uu baahiyay Hamas waxa ay sameysay qalad weyn waxayna bilaabeen dagaalka dhana dowladda wasiirka gaashaandhigga ayaana dhanka kale farta ugu fiiqay in la ansixiyay qorshaha dib loogu yeerayo ciidamada keedka militariga wuxuu intaas ku daray in ciidamada Israel ay goob walba kula dagaalamayaan cadowga ayna dowladda Israel ku guuleysan doonto dagaalka ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu ayaa dhankiisa siyaabooyin kala duwan dhowr mar uga hadlay xiisadan isagoo oonaya ayaa warbaahinta qaar soo bandhigtay isla markaasna ku calaalay in Hamas ay doonayso in gabi ahaanba cagta mariso Israel jawaabaha caalamku ka bixiya dagaalkan markaan u eegno dhowr dal ayaa ilaa iminka ka hadlay xiisada iyo dagaalka ka dhaxaloosan Hamas iyo Israel Mareykanka ayaa cambaariyay dagaalka wuxuu ku booriyay labada dhinac inay ka waantoobaan kala argoosiga sidoo kale Mareykanka waxa uu si cad u sheegay inuu garab taagan yahay Israel balaayiin lacaga iyo hubna uu ku taageeri doono Israel si ay isku difaacdo dhowr mar ayayna madaxdu Mareykanka warbaahinta ka soo muuqdeen iyagoo ka xun xaaladda Israel qabsatay Masar oo inta badan dhaxdhaxaadisa Israel iyo mintidiinta Falastiin ayaa labada dhinac uga digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta xiisada hadda taagan war qoraal oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Masar ayaa ku baaqday in la muujiyo isxakameyn ugu badan iyo baahida loo qabo in la badbaadiyo dadka rayidka midowga Yurub iyo dhowr wadan oo kuwa qaaradda Yurub ayaana sidoo kale cambaareeyay weerarkan Imaaraadku waxa ay dalbadeen in xabadda la joojiyo ma jirto sidoo kale wadamada Sacuudi uu kamid yahay oo arinkan wali ka hadlay halka Qatarna ay si cad u cadeysay mowqifkeeda Yuhuudna ku eedeysay inay iyagu mas'uul ka yihiin wax walba oo dhacay isla markaasna taageero u muujisay shacabka reer Falastiin guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii oo aad kala socoteen channelka dabagalka wararka fadlan daawade waad ku maasantahay kamid ahaanshiyaha saaxiibada dhawaa channelkan aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalka la sii wadaaga saaxiibadiina laagtiina waa inuu dhiiragelin waana ku maasantihiin daawashada iyo la socodka wararka channelka dabagalka wararka